waxaan wanaagsan daawadayaal halkan waa xulashada wararka aad ugu barateen wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka taariikhdu waxay ku beegan tahay 29 bisha 9 sanada 2021 waana subax Arbaca ah qodobada iminkadana daawan doontaan waxa kamid ah Axmed Madoobe oo si cajiib ah ugu hadlay khilaafka Farmaajo Roble haddaba muxuu ka dhahay muuqaalkan ay idinku bidhaamin doonaa waxaad kaloo daawan doontaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta oo 4 qodob oo xasaasi ah banaanka soo dhigay haddaba maxay yihiin afartaasi qodob waan idin bidhaamin doonaa Cabdi Xaanshe Cabdullaahi oo sheegay in midnimada Soomaaliya iyo go'aansutaaga Somaliland midna muqaddas aysan ahayn sababtu muxuu ku sheegay waan idin bidhaamin doonaa waxaynu kaloo idin faahfaahin doonaa wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlay dhibaatada ay reer Somaliland ku qabaan baasaboorka Soomaaliga ah dhibaatadaasi muxuu ku sheegay muuqaalkan ay idinku bidhaamin doonaa qodobadan oo faahfaahinaya saaxiibayaal daawan doontaan fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo beer haddii aad horan la joogteen si share garay muuqaalkan si daawadayaal kale u gaaro ugu bogtaan daawashadaada wacan oo ku mahadsan tahay fadlan aragtida saleemka ee wax dhisaysa qaybta hoose noogu reeb adiga oo ka soo aragti dhiibanaya sida ugu haboon ee loo xalin karo khilaafka ka dhex jira Farmaajo iyo Roble haddaba daawade maxay kula tahay adiga yaasa kula saxan fadlan aragtida qaybta hoose noogu reeb aynu ku bilaawno madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa khudbad ka jeediyay kulan ka dhacay magaalada Kismaayo oo isugu yimaadeen ururada bulshada rayidka Jubbaland iyo hay'adaha kala duwan ee maamulkaas waxaana ka hadlay arrimaha doorashada iyo khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble waxa uu sheegay in mowqifka Jubbaland uu cad yahay oo arrimaha doorashada ay u daba fadhiyaan ra'iisul wasaare Roble oo meel fagaara ah uu kula wareegay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ma labanlaabeynayo shaqada maanta dalka ka socoto ee doorashada hogaaminteeda waxaa iska leh golaha fulinta ee ra'iisul wasaaraha hogaaminayo waxaa lagula dhagan yahay inuu go'aan ka gaaro oo maxkamad u diro kiiska gabar la dilay ee ma doorasho qaban kara arrinta Ikraan waxay banaanka soo dhigi doontaa dulmi badan oo horey looga geystay dalkan ayuu yiri Axmed Madoobe sidoo kale waxa uu sheegay in kiiska Ikraan sida cadaaladda loo waafajiyo ay tusaale u tahay shakhsiyadda ra'iisul wasaaraha isagoo sheegay in wada saxan uu u maray markii uu xil saaray inay baarto maxkamadda ciidamada waxaan dhihi lahaa Roble si cad ay ummadan mas'uuliyadda kugu dhiibatay ee qofka la dilay cadaalad u raadi oo gabadhaas kiiskeeda maxkamadda ciidanka ha qaado doorashadana u qabo si xalaal ah oo aysan noqon doorasho midida daabkeeda lagula haysto ayuu hadalkiisa ku sii daray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa ra'iisul wasaaraha ka dalbaday in markii uu culays dareemo uu golaha wada tashiga qaran isugu yeero si wixii caqabad ah ay ugu wada tashadaan madaxweyne Farmaajo waxaan ugu digayaa oo aan leeyahay kiiska gabadhaas yuusan ku saabsanin mustaqbal xumo iyo madow siyaasadeed yuusan idin horseedin adaga iyo dad badan oo maanta siyaasadda ku jira arrinta doorashooyinka ka wareeg oo u daa ra'iisul wasaaraha kana dhaaf caqabadaha aad maalin kasta hordhigayso ayuu yiri Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubbaland waa tahay daawadayaal wali waxaad la socotaan wararka channelka xulashada wararka aragtidiina iyo saaxiibayaal nala wadaagi kartaan idinka oo qaybta hoose ee commentiga noogu reebaya kana soo hadlaya khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble sida ugu haboon ee loo xalin karo iyo sidoo kale cid aad isleediin way ku haboon tahay in xilligan la joogo uu tanaasulo si dalkeena horumar loo gaarsiiyo dhanka kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadlay dhowr qodob oo xasaasi ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo khudbad ka jeedinayay kulankii hadal jeedinta murashaxiinta doorashada aqalka sare ee gobolada Waqooyi ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah kulankaas oo ka dhacay xerada Afisyoon ee gudaha magaalada Muqdisho inta badan hadalka ra'iisul wasaaraha wuxuu diiradda ku saarayay arrimaha doorashada ee haatan taagan isagana uu mas'uulka ka yahay hase ahaatee Roble ayaa si guud u soo hadal qaaday 4 qodob oo uu ku soo diray khudbadiisii uu ka jeediyay halkaas 1 hufnaanta doorashada aqalka sare
ugu horeyn ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble waxa uu khudbadiisa ku sheegay inuu ku faraxsan yahay hanaanka gudagalista doorashada gobolada waqooyi ee Somaliland taasi oo uu sheegay inay astaan u tahay sida ay Soomaaliya u aaday doorasho. Waxa uu dalbaday in la xaqiijiyo hufnaanta doorashada kuraasta aqalka sare ee hadaljeedinta murashaxiinta ay qabsoontay. Waxaan farayaa dhammaan gudiyada doorashooyinka, guddiga wax dooranaya, odayaasha iyo murashaxiinta in la ilaaliyo hufnaanta doorashada, in la ilaaliyo cadaaladda doorashada, ayuu yiri ra'iisul wasaare Rooble. Shacabka oo dhan ayuu sheegay inay si gaar ah ula socdaan doorashada kuraasta Somaliland, isagoo taa sharaxaya waxa uu yiri gobolada waqooyi Somaliland waxay caan ku tahay doorasho hufnaan iyo cadaalad ah, sidaa darteed shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan indhaha ayay idinku hayaan, marka waxaan rabaa inay noqoto doorasho lagu dayan karo oo taariikhda gasha. 2. Fariin ku saabsan khilaafka hadda taagan. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu si kooban uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya una dhexeeya isaga iyo madaxweynaha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo ay gudaha Soomaaliya iyo dibaddaba laga hadalhayay dhowrkii isbuuc ee la soo dhaafay. Inkastoo uusan si toos ah carabka ugu dhufanin magaca madaxweynaha oo ay isku khilaafeen arrimo dhowr ah oo siyaasadda Soomaaliyana khuseeya, haddana waxa uu sheegay Rooble in xaaladda ay marayso meel wanaagsan, sidoo kalena ay wax walba iska hagaagi doonaan. Shacabka ayuu u diray fariin uu uga sheegayo inaysan khilaafkaasi wax walwal ah ka qabin. Shacabka Soomaaliyeed waxaan farayaa inay ilaaliyaan xasiloonida, cadowga shabaabna uusan ka faa'iideysanin waxyaabaha tuunka abuuraya ama xaaladda ugu sii daraya ee dhinacyada siyaasadda ah. Wax weyn oo siyaasadda la isku hayo maba jiraan, ayuu yiri ra'iisul wasaare Rooble. 3. Kiiska Ikraan. Sida ay dad badanba ka war sugayeen, ra'iisul wasaare Rooble ayaa khudbadiisa dhinacyada badan taabanaysay ku soo hadal qaaday kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ka tirsaneyd saraakiisha hay'adda sirdoonka qaranka iyo nabad sugidda Soomaaliya ee NISA oo la la'yahay tan iyo bishii Juun. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa inaan markasta u taaganahay cadaalad, dhammaanteen cadaalad ayaana deeqdo. Walaashay gabadheennii Ikraan Tahliil cadaalad way helaysaa, kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno, insha Allah gacanta shacabka Soomaaliyeed way soo geli doonaan, waana lala xisaabtamaya, ayuu yiri Rooble. Waxa uu intaasi ku daray in hawsha lagu guda jiro oo maxkamadda militariga loo xil saaray go'aankeedana labada sugayo. Kiiska Ikraan ayaa la aaminsan yahay inuu xudun u yahay khilaafka hareeyay siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan doorashada una dhexeeya ra'iisul wasaare Rooble iyo madaxweynaha Soomaaliya, kaasi oo sababay in fila Soomaaliya goor hore war ka soo baxay lagu sheegay in awoodihii ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya la dhimay. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa si aan qarsoodi ahayn oo toos ah isugu qabtay arrimaha ku biyo shubanaya kiiska Ikraan. 4. In aqalka sare uu noqon doono meel madax u ah dalka. Arrimaha uu khudbadda ku sheegay ra'iisul wasaare Rooble waxaa ka mid ahaa inuu doonayo dhamaystirka doorashada aqalka sare si uu u noqdo meel loogu soo hagaago Soomaaliya. Dowlad goboleedyada weli ku howlan doorashada aqalka sare ayuu ka dalbaday inay soo dhamaystiraan kuraasta weli harsan. Marka uu aqalka sare istaago ayuu sheegay inuu noqon doono masiir loogu soo hagaagi karo arrimaha doorashada Soomaaliya. Isbuuca soo socda ayaa la filayaa in doorashada kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi lagu dhamaystiro. Haddii kuraasta ka dhiman dowlad goboleedyada kale la soo gudbiyana, waxaa bilaaban doonta hawsha doorashada golaha shacabka ee Somaliland. Cabdi Xaanshe ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan Somaliland iyo midnimada labada dhinac. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshe Cabdullaahi oo hadal ka jeedinayay munaasabadii ay khudbadahooda ka jeedinayeen murashaxiinta aqalka sare ee xubnaha Somaliland ayaa sheegay in marka laga hadlayo midnimada Soomaaliya ay reer waqooyiga iyo reer koonfur hal hays ka dhigteen laba ereyo oo midkood uusan sax ahayn. Cabdi Xaanshe ayaa sheegay in dad reer koonfur ah
ay markasta dhahaan midnimada Soomaaliya waa muqadas, halka reer waqooyiga ay dhahaan gooni isu taaga Somaliland waa muqadas, balse midkood labadaasi eray uusan sax ahayn. Waxa uu sheegay in dowladnimada Soomaaliya ay maanta ka dhisan tahay xukuumad xilgaarsiin ah oo kaliya, isagoo dib u dhacaas ku eedeeyay dowladda madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday ee Farmaajo. Dowladdii waxay fulin weysay doorashadii, taasina waxay keentay xukuumadda loo dhiibo doorashada, waxaana hadda ra'iisul wasaaraha ka sugaynaa in degdeg uu doorashada u dhammaystiro. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay ku gacan siiyaan, ayuu hadalkiisa ku sii daray Gudoomiye Cabdi Xaanshe Cabdullaahi. Ugu dambeyntiina, wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadlay dhibaatada ay reer waqooyiga ku qabaan baasaboorka Soomaaliga. Wasiirka Wasaaradda Dastuurka Xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo jeediyay khudbadiisa musharaxnimada ee aqalka sare ayaa ka hadlay sababta ku kalaftay inuu aqalka sare u soo wareegsado. Wasiirka ayaa sheegay inuu aqalka sare u soo aaday si uu miiska u soo saaro doodaha masiiriga ah ee gobollada waqooyi iyo midka Somaliland. Wasiirka ayaa sheegay in dadka Somaliland ay dhibaato ku qabaan helitaanka baasaboorka Soomaaliga, taasina ay ka dhalatay dhibaatooyin fara badan. Sidoo kale, wasiirka ayaa sheegay inuu doonayo inuu ka shaqeeyo sidii dadka gobollada waqooyi ay u noqon lahaayeen dhammaantood kuwo wadaniyiin ah oo ka shaqeeya midnimada Soomaaliya, isagoo sheegay in siyaasiyiinta ku sugan gudaha magaalada Muqdisho aysan kaligood keeni karin Somaliland oo midnimo ogol. Waxa uu sheegay wasiirka in matalaadda reer Somaliland ee aqalka sare laga siiyay 11 kursi inay ku yar tahay oo aysan ku filnayn. Hadalka wasiirkan oo ah wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac wuxuu ku soo beegmayaa xilli Somaliland ay weli aaminsan tahay inay ka go'an tahay Soomaaliya inteeda kale. Wahagaag dawadayaal, halkan ayaan ku soo afmeerayaa wararkii aad kala socoteen janalka xulashada wararka. Dawshadeena wacan iyo la socodkeena coddoon waad ku mahadsantihiin. Nabadgelyo daawadayaal.